waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo dhallinyarada isdhexgalka anigu dhallinyaradan ku jira marka inaan isdhexgalka idinkala shaqeeyo maadaama aan dhallinyaro ahay ayaduna waajib saaran waayo xildhibaannimada ka sokow gabdhaha caawa waxay ka dhineen laba gabdhood waa la keenay laba dhallinyaro waa la keenay laba kale waa la keenay horta maxaa laba oday loo keeni waa maxaa laba islaamoodoo waaweyn loo keeni waa qabya markay isu keenidda waa lagu noqonayaa marka waxaan rabaa dhammaan dhallinyarada inaan mar kale haddana u mahad celiyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo odayaasha u horreeyaan iyo culimmada oo runtii tiir dhexaad u ah haddaad dib u heshiisiin maqashaan yaa iskale oo tiir dhexaad u ah odayaasha iyo culimmada u ah hadday labadaasu aysan salfadhi u noqon waxba kama imaanayaan meeshaas waxaa lagu noqnoqday dhallinyarada horta dhallinyaradu inay dee gaar wuxuu yihiin waaba la sheegay maxaa gaar u ah inay isdileenaa gaar u ah markii nin wax dilay wax ma daweyn karaa wa maxayse dhaxlaan markay isdilaan waxay dhaxlaan in la yidhaaho laga sheekeeyo la yidhaahdo kaasi waa kii tuuggahayo dadka dili jira kaasi waa waxuu ahay mashiidiyadii waa khaa'inka aakhirka u dambeeya qofku wax dilaa horta magacaasa u yeesha adduunna male aakhirana male sheekh hadaaye sheekh cabdikariina halka ka sheegay asaa noogu filan qof hadduu wax dilo saacaddoo wax dilo qoomamayn bilaabaa ilaa uu ka dhintana qofku agmari tagaba ma ku dili doontaa odagii aad dishay wiilkiisiya waa dakana u joog marka waa adduunya aakhira waawa marka waryaan wax laysku dili sabab wax lagu dilo qof bani aadana lagu dilaa ilaahayna ma aqbala dadkuna ma ogol marka yaan la dilin wax dhallinyaroy ama qof weynay ama qof nuucay rabtaa noqoto yaan waxba la dilin inaan waxba la dilinaa fiican mas-uuliyadda odayaasha adeerkay maxamed aadan hadaaye wuxuu waa iska fogeeye wuxuu iri naarta adinkaa geli doona naarta waa la wada gelaa sheekha hadaaye sheegay adeer maxamedow mar haddii de ninkii inta duulay markuu soo noqdo horta dilku xagguu ka yimaadaa maxaa joogtaynaa dilka waxaa joogtaynaa qofku wax dilaayaanba la ciqaabi maxaa qoraya u qaato qofuu dilo duurkaanuu ku jiraa waxaa la leeyahay inta laysu yimaado soo wiilkii fiicnaayo reer hebel maahaa odaygii dhalaa imaana wuxuu leeyahay wiilkaygiyaan layga dili haddaan tol qabo odaygii adeer ahaayo meesha fadhiyo kaaba qabiilka cidda ahay intuu soo boodole waa runtiis oday 5 qof uu dilaa 500 halaadoo geeraha la qaybina war maxaa loo ceyrtay inaad dadka masaakiinta nin kaligiisa hoon waxba macnaa lahaynaaba qof dilee maa laga jaseeyoo la dilo oo shareecada lagu dabaqo ninkaas cid dambena dili maa dadkina ceyrtaabi maayaan hadda maalindhood cabdixakiim nimaa 5 qof oo dilay 4 uu dilay midna waa dhaawac matabaan shalay waay 400 halaad iyo dhaawaciyo sii dheer xagee dadku keenaya war qofka wax dila hal la dilo ilaahay ayaa yiri maadinka ilaahay uga roon dadkaas abuuray maadinka jeclaysata waxa Soomaalidu meesha ka bacday waa meeshaas war dadka wax dila oo qaatiliinta oo hadda baadiyo jooga lahay kuwa beledka jooga dadka dhameeyay baadiyo ma jiraan dadku kaliya meeshu doona ha jooga qofka wax dila waa in la dilo